musharax xildhibaan xasan ayaa la dayay weerar oo u sharaxan doorashada golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ee la filayo inay dhawaan dalka ka qabsoonto ayaa si diiran oo maqaamkeedu sarreeyo loogu soo dhaweeyay magaalada Fadhigaab iyo gudaha magaalada Ceelaf Weyn ee gobolka Sanaag. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay cuqaasha waayeelka xildhibaanada madaxda xisbiga wadani ee heer degmo guurtida labeenta iyo haweenka deegaanadaasi waxayna yiraahdeen dhammaan bulshooyinkan xafladan ka soo qayb gashay waxaan u salaamaynaa si mugle oo qurux badan waxaan uga mahadnaqaynaa soo dhaweynta quruxda badan ay ka qayb qaateen waxaan kale uga mahadnaqaynaa soo dhaweynta xildhibaanka cusub ee degmada Fadhigaab u diyaar garowday inay cod ka siiyaan oo soo saaraan oo muruq iyo maskaxba daba dhigaan sida odayaashu raba dhaxeen waxaan maanta halkan lagu soo dhaweynayaa xildhibaanka cusub ee Xasan Ayaanle Cabdullaahi Dayaxweerar oo ka sharaxan xisbiga wadani xisbigiina waa arkaa sida dadweynuhu maanta yahay anana waa aragnaa waxaan leenahay xildhibaan ummadaadii waa taa ku hareere tuban waa taa ku garab taagan waa taa ku garab socota waxaan ku leenahay xildhibaan sidaa lagu doortay baad noogu dooran tahay ku soo dhawow magaaladaadii ku soo dhawow dadkaagii ku soo dhawow maxay tahay qalbi furan ku soo dhawow aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa qarnahay dadweynaha reer Fadhigaab waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa musharaxa golaha wakiilada ee gobolka Sanaag Xasan Cabdullaahi Xirsi kana sharaxan xisbiga wadani kana sharaxan baan ku soo dhaweynaynaa waxaanu leenahay ku soo dhawow deegaankaagii dadkaagii qalbi furan gamca furan qalbi saafiya baan kugu soo dhaweynaynaa musharax haddaanu nahay magaalada Fadhigaab wax allaale wax lagala harayo arrinkaas ma jiro iyo gobolka Sanaag waxaan kaloo idiin sheegaynaa bismillaahir rahmaan waxaan kaloo idiin sheegaynaa wuxuu walaalaha dhaxaad loo sheegay waxa dhiiqdaba waa laga dhalin dhaxaad loo sheegay ka bacdi halkan waxaanu iskugu nimi xaflad wanaagsan waxaanu u qabanay ninka la yiraahdo Xasan Ayaanle Cabdullaahi Xirsi oo ka sharaxan xisbiga wadani oo baarlamaanka ninkaasaan halkan iskugu nimi codka ninkaasaa loo diyaar gareeyay magaalada waa aragtaan miyigina waa maqan yahay waxa weeye waa taageer waxa weeye ninkaasaa garab la siinayaa waxa weeye soo dhawow baan leenahay Xasanow ku soo dhawow magaalada deegaankaagii ku soo dhawow degmadaadii ku soo dhawow tuuladaadii ku soo dhawow gobolkii ku soo dhawow waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa xildhibaanka cusub ee ka sharaxan xisbiga wadani Xasan Ayaanle Cabdullaahi Xirsi Xasan Ayaanlow soo dhawow barakaatun xasanow soo dhawow ku soo dhawow magaaladaadii ku soo dhawow Fadhigaab ku soo dhawow Garadag ku soo dhawow maxaan ku dhahday cod midaysan ku soo dhawow maxaan dadkaagii Xasan Ayaanle Dayax waanu ku salaamaynaa ku soo dhawow dalkaaga iyo dadkaaga cod midaysan nabadgelyo halka waxaan ku soo dhaweynaynaa musharax Xasan Ayaanle Dayaxweerar oo egas Ceelaf Weyn oo la garanayo oo nin aaga ku caan ah oo u sharaxan golaha wakiilada Soomaaliland kana sharaxan xisbiga wadani waxaan leenahay degmadaadii ku soo dhawow dalkaagii ku soo dhawow dadkaagii ku soo dhawow waxa la doonayaa aqoonyahanka in la doorto waa aqoonyahankii wax u soo bartay degmada inta badan uu maqnaa maanta hadduu si dadkaaga wax u qabo falaya tafadal baan ku leenahay soo dhawow waxaan halka ku soo dhaweynaynaa Xasan Ayaanle aqoonyahankii degmada gobolka dalka soo dhaweeyaan leenahay runtii dalka ku baahnaa deegaanka ku baahnaa waxaan ku leenahay wad u qalantaa booskan runtii Ceelaf Weyn ku wada taagan tahay xaqiiqatan waxaan ku leenahay si weyn oo kaliya laaba ayaa lagu soo dhaweynayaa qiimo badan sharaf ku jirto codkiina waliba kugu yaala diyaar kugu yahay waxaan ku leenahay ku soo dhawow degmada halka waxaanu isugu nimi soo dhaweynta xildhibaan Xasan Ayaanle Dayaxweerar waxaanu leenahay degmadaadii ku soo dhawow gobolkaagii ku soo dhawow aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa Xasan waa nin reer Ceelaf Weyn ku dhashay waa dadkii la garanaya taariikhda lahaa waa taageersanna raxiim halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa xildhibaan Xasan Ayaanle oo ka sharaxan
u sharaxan golaha wakiilada oo ka sharaxan xisbiga wadani waa aqoon-yahanka dhalinyarada ah dadka iyo dalkaba la doonayo inay wax u qabtaan waxaan leenahay xildhibaan xasan ayaanle ku soo dhawow dalkaagii dadkaagii degmadaadii idinkale reer Celafweyne waxaan idin leenahay aqoon-yahanka da'da yar codkiina siiya si ay wax idinku qabtaan halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa musharaxa golaha wakiilada xasan ayaanle dayaxweerar waa nin aqoon-yahana waa nin dhalinyaro waa nin egas reer Celafweyne waxaan ku leenahay hiil iyo hoob oo kula garab taaganahay bismillaahi raxmaani raxiim halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa golaha wakiilada xasan ayaanle oo ka tirsan golaha wakiilada degmada Celafweyne iyo gobolka bismillaahi raxmaani raxiim halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa xildhibaan xasan ayaanle cabdullaahi xirsi xasan dayaxweerar loo yaqaano oo ka tirsan xisbiga wadani waana salaamaynaa waan soo dhaweynaynaa wuxuu ku mahadsan yahay hanka uu yeeshay uu ku tartamayo golaha wakiilada Soomaaliland ugu tartamayo haddaan nahay markaa anagu beesha Axmed Faarax Biciide waxaan taageersanahay xasan ayaanle dayaxweerar oo ka tirsan xisbiga wadani waa taageerinaa xisbiga waa taageerinaa waxaan salaamayaa gudoomiyaha waxaan salaamayaa xildhibaan xasan ayaanle oo nasiib wanaag ah ardaydii aanu iskuulka ahayn classmate-ka ahayn ma sha Allah maantana anigoo xisbigii ka tirsan wadani iyo isagoo xildhibaan ah insha Allah halkan ilaahayna soo kaay keenay ilaahayna waxaan uga rajeynayaa waa dhalinyartii waa cuqaashi waa magaaladii Celafweyne oo dhan oo aan cidina ka maqleen oo aan qabiil ahayn ilaahay waxaan uga rajeynayaa ilaahay inuu xilkaasna u fududeeyo insha Allah soo saaro annaguna waanu hambalyeynaa ka xisbi ahaana aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaanu leenahay dhammaan waxaanu soo dhaweynaynaa musharaxan ka tirsan golaha wakiilada ee ka tartamaya xisbiga wadani dhammaan waxaanu leenahay soo dhawow annagoo xisbigii anoo ah garabkii haweenka waxaan leeyahay xasan waxaan leeyahay ku soo dhawow gacmo furan iyo qalbi furan haddaanu xisbigii hoggaankiisii degmada Celafweyne waanu soo dhaweynaynaa gacmo furan iyo qalbi furan waayo waa dhallinyaradii Celafweyne waxa loo baahan yahay in la doorto aqoon-yahanka dhalinyarada ah ee firfircoon horta salaamaya madaxda xisbiga wadani meel kasta joogto waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa musharax golaha wakiilada xasan ayaanle dayaxweerar ninka la yiraahdo soo dhaweynaynaa si fiican baa ninkaasi waxa weeyaan u soo dhaweeyay xisbigu waanu aqbalay waxa weeyaan gacmo furan iyo qalbi furan baan ku soo dhaweynaynaa gabadhii waxa isdaalkaasi ka hadlay musharax xildhibaan xasan ayaanle dayaxweerar oo uga mahad celiyay soo dhaweynta ay u sameeyeen dadweynahaasi sidoo kalena ka warbixiyay hanka iyo himiladiisa ku aadan musharaxnimada doorashada golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu sharaxan yahay aad iyo aad baan idin wada salaamayaa dhammaan bulshooyinta reer Celafweyne ee igu soo dhaweysay maanta degmadeena aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa hadday noqoto cuqaasha salaadiinta xildhibaanada madaxda xisbiga wadani gudoomiyaha xisbiga gudoomiyaha ku-xigeenka gudoomiyaha garabka haweenka dhammaan xisbiga wadani madaxdiisa igu soo dhaweeyay degmadeena aad iyo aad baan uga mahad celinayaa iyo bulshada weyn degmada Celafweyne hadday noqoto salaadiin hadday noqoto cuqaal hadday noqoto xildhibaan aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa jazaakumullahu khayran jazaa aad baa u mahadsantihiin shalay toban ka soo bilaabay degmada Garadag ilaa Fadhigaab ilaa maantana Celafweyne ku sugan si wanaagsan oo sharaf iyo karaamo ay ku dheehan tahay lagu soo dhaweeyay aad iyo aad baa u mahadsantihiin degmadana waa degmadii aan ku dhashay waa degmadii aan iskuulka ka bilaabay waxa weeyaan sida asxaabtida kale Ismaaciil baa halkan jooga isaguna aan isku hayn dhalinyaradii klaaska waliba aanu hayn si wanaagsan oo sharaf leh lagu soo dhaweeyay anigu waxaan leeyahay baan leeyahay waxaan doonayaa inaan ka mid noqdo insha Allah bidmillaahi kariim maxay ahaytay golaha wakiilada doorashada inagu soo fool insha Allah bidmillaahi kariim haddii aan insha Allah ku guuleysto anigu waxaan ahay nin dhalinyaro ah nin karti leh nin garanaya degmada waxay ka dhiman degmadan iyo deegaankeena waynu ka hadhnay sida gobolada kale ee Soomaaliland sida awadeed waxaynu u baahannahay dhalinyaro isku duuban dhalinyaro firfircoon dhalinyaro niyad saafiya leh aan waxaan ku dhex jirin oo ka wada shaqeeya dhammaan iyagoo isku duuban deegaankeenan waxaynu u baahannahay inaynu horumarino weliba waxyaabo badan oo asaasigii nolosha ka mid ah degmadana ka maqan yihiin sida biyaha waxbarashada iyo caafimaadka waxaynu u baahannahay inaan isku duubnaano inagoo isku duuban inaan wada jira inaan hawsha wax ka qabanno insha Allah bidmillaahi kariim anigana wixii karaankayga ah mar walba diyaar baan lahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin Axmed Mursal Askar Universal TV Celafweyne